waa farxad dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed soo hoyatay runtii waa taariikhi dal wuxuu dowlad ku noqdaa markuu awoodi karo inuu xuduudihiisa iyo shacabkiisa uu ilaasho karo waxay noo saamaxaysaa in xuduudaheena aan ilaasho karno inaan shacabkeena ilaasho karno ayay noo saamaxaysaa waa fursad qaali ah runtii oo dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed soo hoyatay hoggaanka dalka oo ugu sareeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud runtii juhdiga uu ku bixiyana waxaan leenahay Ilaahay ka abaalmariyo waa fursad dahabi ah waa xaqiiq markii la doortay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud himilooyinkii uu asteeyay waxaa kamid ahaa Soomaaliya in laga qaado cunaqabateynta hubka in deynta laga cafiyo inaan ku biirno urur goboleedka dhaqaalaha bariga Afrika EAC loo yaqaano dastuurka in la dhameystiro in shabaab laga ceertiro khawaarijta laga ceertiro dalka waxaan xaqiiqo ah in la xaqiijiyay saddex kamid ah goolashaasi labada kamid ah wadadooda hadda lagu socdo waxaa la xaqiijiyay in aan kamid noqono ururka dhaqaalaha bariga Afrika waxaa la xaqiijiyay inaan cunaqabateynta hubkana la ka qaado maalmo dhowna waxaan filaynaa farxad kale oo dowladda Soomaaliya shacabku soo hoyatay oo ah in deynta laga cafiyo waxaa noo dhiman laba program noo dhiman oo himilooyinkii uu noo asteeyay madaxweynaha ka dhiman oo ah in dalka khawaarijta laga ciribtiro dalka nabadgelyo lagu soo dabaalo oo runtii ah arrin aad muhiim u ah oo waxa kala dhan aysan suuragalayn haddaysan aan la samaynin taasna waxay ka falantaa dowladda iyo shacabku iskaashado oo iska celiya khawaarijta dalkana nabadgelyadiisii dib ugu soo dabaalo tan xigtana waxa waaye in dastuurka la dhameystiro taasna waxay gacantooda ku jirtaa Ilaahay ka sokow xildhibaanadeena sharafta leh dadka Soomaaliyeed matalo golaha shacabka in iyagana go'aan geesinimo la qaataan oo dalka ay ka bixiyaan dastuurka meel gaarka ah marka waa guulo waaweyn waa guulo taariikhi ah waa guulo aan rajaynayno haddii Rabbi idmo in shacabka Soomaaliyeed da'irtiina adinka la midka ah waxaad ku faantaan oo ayahiina dowladda Soomaaliya iyo dadka madaxda oo idinka horeeyay wax weyn oo ay idin hagaajiyeen oo aad ku hira kartaan oo horay ma jirin laakiin kuwan waxay noqon doonaan iyada diilooyinka aad ku hira kartaan ay noqon doonaan hadii Alle waa mahadsan tahay xaqiiqdii juhdi xoog leh ay wasaaradda arrimaha dibadda hoggaankeeda sare wasiirada iyo shaqaalaheeda diblomaasiyiinta meel kasta oo ay joogaanba waxay ku bixiyaan juhdi xoog leh ay ku bixiyaan fulinta siyaasadda dalka arrimaha dibadda waad ogtahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaa jirtay oraax halku dhig oo uu u sameeyay maamulkiisa intuu ku jiray ololaha uu ku jiray oo ahayd Soomaali heshiis ah dunida heshiis la ah tiirka Soomaali dunida heshiis la ah fulinteeda waxaa iska leh wasaaradda arrimaha dibadda iyadaana daba taagday caqabad kasta oo diblomaasiyadeed oo timaadana qaabkii looga bixi lahaa har iyo habeen ayaa xal jiray waqti la geliyaa oo laga fikiraa qaabkii looga bixi lahaa xaqiiqdii waa muhiim xilliga hadda aan taaganahay inaan yareyno xal jiray ama baabi'ino cadaawadda naga dhaxay karta anaga iyo dal kale because xilligan anaga domestically ama dal ahaan gudaheenaan u baahannahay inaan wax badan iska hagaajino waxaan u baahannahay nabadgelyadeena inaan gacanteena ku dhigano tusaale ahaan haddii hadda ay jiri lahayd siyaasad xumo ama xiriir diblomaasiyad xumo golaha ammaanka 15kaas dal si fudud kuma aysan codayn lahayn oo ma dhihi lahayn Soomaaliya waxaan ka qaadnay cunaqabateynta hubka sidoo kale ma sahlanaan lahayn in maxaa la dhihi jiray nala ka qaada iyadana deynta nala ka cafiyo marka waxay ku timi juhdi badan oo xoog leh oo dowladda Soomaaliya isku duuban guud ahaan iyo wasaaraddeeda arrimaha dibadda diblomaasiyiinteeda safaaradaha dalalka dibadda joogo oo runtii juhdi xoog leh har iyo habeen geliyo iyo dhammaan qof kasta oo Soomaali oo muwaadin oo runtii ku kaalmeeyo hadduu noqon lahaa taxi cashuur bixiye hadduu noqon lahaa wiilka dhalinyarada ee furimaha joogo xabadda soo dhigayo ama gabadha furinta joogto xabadda soo dhigayso hadday noqon lahayd bahda saxaafadda oo adinka qayb aad ka tihiin oo runtii aad bulshada gaarsiisaan himilooyinka iyo meelaha waxa la higsanaan waa mahadsantahay horta hubka qolqolkiisa badanayo
qofkii haddaba oo rabo inuu hub soo iibsado tusaale ahaan argagixisada hubka way soo iibsadaan dalkana way keensadaan laakiin waxa oo runtii xaqiiqda runta waxa waaye waxaa kontrooli doono hubka dalka soo galaya kontrooli doono waxaa soo gali doono oo kaliya hubka dowladda Soomaaliya ay rabto dalka inuu soo galo dowladda Soomaaliya waa dowlad mas'uula shacabka Soomaaliyeed waa ka gudbay xilligii colaadaha sokeeye u jiray oo ama qabaa'il ay is haysteen ama siyaasiyiin aragtiyo kala duwan leh ay is haysteen ama dad xukunka xoog ku raadinaya ay jireen waqtigaas Soomaaliya waa ka soo gudubtay Soomaaliya hadda waxay maraysaa Soomaali bisil runtii og qofka maanta wuxuu galabsado oo uu haleeyo inuu isaga mas'uul ka yahay oo reerka isaga uu ka dhashay aysan mas'uul ka ahayn xilligaas ayaa la marayaa sidoo kale waxaa la marayaa xilli aan u baahannahay xuduudaha aan leenahay oo runtii xuduudo dheer ah waxaan jiray inaan xuduudaheenaas soo xiranno oo aan ka xiranno cadowgan argagixisada aan ka xiranno sidoo kale waxay fursad noo siinaysaa in aan la dirirno khawaariijta la dirirno oo aan ka adkaano maadaama aan ka xoog badnaanayno si kale haddaan u dhigo haddii hadda lagu dhaho wax qor oo lagu dhahona qalinna laguma siinaayo ama aaladii aan wax ku qori lahayd waa adag tahay inaad wax qortid waxaa lamid ah cunaqabateyn hubaa ku saaran cadowgana iska celi cadowga baryo laysagama celiyo sharsharaa kaa celiso marka fire powerka waxaa la dhahaayo qofka inaad ka hub badan tahay wax weyn ayay tartaa waxaan rajaynaynaa inay noqon doonto tii saldhig rasmi ah oo noqon lahayd dowladda Soomaaliya oo badhaadhe iyo barwaaqo lagu gaaro guulaha isdaba joogga ah dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliya ay gaarayaan waa guulo runtii lagu riyaaqo runtii abuurayana kalsooni lagu qabo hoggaanka dalka lagu qabo waxaan Soomaaliya iyo siyaasiyiinteena iyo cid kasta oo mataqaanaa danaysa arrimaheennaba ugu baaqayaa in gacmaha la isqabsado in nabadgelyada laga wada shaqeeyo waxaa taagan fatahaado in fatahaadahaas waxaa dhihi jiray dadkeena aysan nooga dhimanin wixii nooga dhintay Ilaahu naxariistay kuwa ku tabaalaysan aan intaan garab istaagno aan dadkeena u kaalmayno aan noqono dad runtii gobolka unique ayaan nahay waxaan sugayo challenges intaan ka badan ayaan sugayo aan u diyaar garowno Soomaalida cusub iyo faceka cusub ay galayso